وحنها يوهدي قدسيدا وحنها يوانا معلنكا. After more than 2 decades of war, only 4 out of 10 children in Somalia are currently enrolled in school. With 65% of Somalia's population being pastoralist, only 22% of pastoralist children have taken up formal education. And even this is because increased stability has enabled the federal government and local communities to partner with organizations to rebuild education structures. guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada walbadan ku qabatay markii la fiiri waqtigii la bilaaway 2015 bili March waqtigaas oo hayti wal nidaam ama wasaaradda injarna iskoolaadka gacan ka hayaan dalada marka may hayna iskoolaad oo nan walba manhajkii fado isticmaalo ama waqtigiisu fado imtixaanaadka qaado ama meelahay waqtigiisu fado meelahay iskoolaadku isku fasaxo wal jadwal oo kamidaysan ma jarna marka wasaaradda waqtiga shaqo bilowdi walaya ka guuleysatay may kuma tahay in la maday manhajkii uniformkii oo ardayda qaadaasi. A country is developed by its educators, not its powerful people. Those who develop the countries are those who educated themselves. That's what I believe. Education is important for a nation. The Adventist Development and Relief Agency, with funding from the European Union, established the El Midon Enhanced Action Project and in close liaison with the Ministry of Education, Culture and Higher Education, constructed a total of 10 model schools in different regions of Somalia. School Gorta Hukuya Lamela School Karudoy. Hadda ardada oo hadda la diiwaan galiyay iyadoo la joojiyay waliba 600 bay geedan tahay wayna sheeganayaan oo dadku inuu diiwaanku sii socday rabaan baahi weyn baa loo qabay meel iskuul u baahnayd baana laga dhigay iskuulka. The newest school to be opened was Afgoye Primary School, which was handed over to the Ministry of Education on the 1st of April 2017. Schoolkan malahan midowga Yurub malahan hay'adda adra malahan waxa iskala bulshaweynta degmada Afgoye. Iskuulkan ilaalintiisa waxa naga saaran waajibaad iyo ka faa'iideysigiisa waxa laga rabaa bulshada reer Afgoye. Iskuul noocan oo kala ma haysanin asagoo lacag la'aan ah dadka baahan oo tabarta daran ayay aad u saacideysaa maaragtay habkooda dhaqaale waalidka masaakiinta ah marka saacideen aad u weyn musaacado aad u weyn u fulisaa iskuulka. Halkan iskuulka ku yaala wuxuu ahaan jiray xilligii hore dawladda siyaad barre waxa la sheegay inuu ahaa iskuul dawladeed oo wax lagu barto laakiin aleena barnaamijkan markii la bilaabayay wuxuu ahaa qashin qub oo qashin yaalo oo deegaan ahaan xataa aan loo soo dhaxmari karin bacdina faa'iidadan hadda loo jeedo oo ardadan quruxda badan waxbarashadan quruxda badan habsami u socodkan faa'iidada quruxda badan ayaa laga helay. waxaa faa'iido ka soo galay in caruurtoodii wax ku bartaan ayagoo waliba qaxootiyahoon cid kale oo taageerto oo hadda u taaganaysan jirin inay ka faa'iideystaan mashruucii iskuulkii ilmihii u dhigtaan wax ka faa'iideystaan wax ku bartaan xataa waalidiinta ay yimaadaan oo ayagana barnaamijka in afiyada ay ka faa'iideystaan wax ku bartaan sidaas darteed marka wax badan ay ka faa'iideen oo dhinac kasta taabanaya. The project enrolls thousands of children to schools. For example, we had finished the construction of Afgoye Primary School in Afgoye. Now the school enrolls 270 students. Similarly, we have constructed primary school in Kismayo. We have constructed primary school in the Adale of Middle Shabelle district. You know, these schools are now enrolling, and this will take part efforts of eradicating the ignorance from the country. The results are clearly visible, but more needs to be done to reach more children
and ensure better quality education. waxaa taageero dheeraada waa loo baahan yahay in macallimiinta oo kale taageerada loo badiyo ama maaragtay si ay laba shift u shaqay karaan loogu daro. waxaa kaloo u noqon kara waxaa kaloo ayadana aad u muhiimsanaa leh hadii la heli karo in tababaro la siiyo macallimiinta tababaro fiican si ay maaragtay wax gudbintooda iyo siday ula tacaamuli lahayn ardada ayaguna aad maaragtay ay u fahmaan. kulay may dareemay ciidanka faraxe waayo nanka oo hadda qofka maalinka wala baraw si dareemo kor walbarashada yoonay heerkii yoonay markaasi faa'iido isku lata. The Elena project is focused on achieving a comprehensive and sustainable education system, especially for those who are marginalized like girls and those living with disability. A blind person can read and write, and the ladies can cook even their food and can do their daily living things. Alhamdulillah. That's why I love in my future to be a foreign minister. The more children are reached and educated, the brighter the hope is for Somalia. waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada